السلام عليكم أصحاب فاضل قروح وإن السلام ملك استو أدونك كجوكتين إنا الله وإنا إلهي راجعون maanta waxaa sawirkaas idinkaga muuqda gabar Soomaaliyeed oo maantay 5 caruur oo ay dhashay godka la geliyay hal mar dagaalka ka socda beled xaawo maantay waxa waaye murugo ay la jiiftaa ilaahay qalbigeeda ha u qaboojiyo صبر إيمان الله كسيو إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي وأديكم باوح والباوودة ما أنت والله وحنون صور كاس والله وعسو جيتي عالم كدن ومرغو شان عرورها عادة شايفك هالمركوة وحو البرط إلهي بقدري الحمد لله رب العالمين وحو إلهي كاننا محو كان لمده لكن ما أنت وح ودن كان دد كان قعنتو ذا إيك اسكو دلايان bal soddon sano wadan dagaal ku jiro wax ka indho xumo badan ma jiraan maanta ilmaheeda haday u dar alla u dhimo lahaayeen ay saxbad u dhimo lahayn way u sabri lahayd hooyadaas laakiin maanta ilmaheeda gacan ku dhiiglayaal dilay dad isku dagaalayo war goormayna horumar gaarayna goormayna qabiilka baxayna oo goormayna dagaalka baxayna balad xaawo Soomaali meel kasto ay joogto Soomaali maalin kasta hooya dhiban hooya baroranayso hooya ubadkeedii laga xabaalaa hooyaa dhimata hooyo aabbaa dhinta maalin kasta hooyaa gablanta maanta hooyadaas wallaahi qabrigii ilmaheeda dul seexatay sawirkan wallaahi oo iga oysiiyay caloosha ay xanuuntay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay samar ha ka siiyo insha Allah bedel khayr qaban ilaahay ha siiyo ayadana marka waxaan leenahay Soomaalida meel kasta ay joogaan dagaalka iska dhaafa dagaal faa'iido male intaas sana ku jirnay ma ka waantooda miyaa Soomaalidu dagaalka ma ka waantooda miyaa Soomaalidu horumar ma ka gaaraan miyaa war dagaal faa'iido male ilmihiina waxbarashada qalinka wax ka fiican malaha quraanka tacliimta kale maanta qoray faa'iido malaha wax oo najiito leeyahay malaha dadweynaha maanta waxay nooga hormareen waa waxbarashada qofku markuu maskaxda uu jaahilka ahayn wax ka fiican mala markuu qofku maskaxda jaahil ka yahay wax walba way la sahlan tahay xabadu way la sahlan tahay dilka way la sahlan yahay laakiin markuu qofku maskaxda mutacallim ka yahay oo wax barto oo diinta barto oo naftiisa wax u barto wuxuu tiigsanayaa see wax u qabsata see horumar u gaartaa see naftaada u gaarsiisaa meel sare laakiin anaka dadkeena waxay ku fikirayaan see magaaladaas u qabsataa see reer hebel ula dagaashaa see maanta wiil hadaa aragtid waxaan ku dhahay qurbaha inta ka laabto wadankiisa fikrad ku kordhiya waxaan ku dhahay bum waa la dilayaa aan ku dhahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wadankeena waxa horumar la gaari lahayd waa qabiil waa qaab darro waa fool xumo maalin kasta waxa oysi waa hooyo Soomaaliyeed waxa dhiban waa hooyo Soomaaliyeed waxa murugo ku seexda waa hooyo Soomaaliyeed maanta wallaahi ilaahay horta naga qabto kuwan qaska wada ilaahay hanaga qabto rabbi subxaanahu wa ta'aala ka baryana reer afduub inuu ilaahay naga qabte maanta hooyadaas oo u jeedin Soomaaliyeed ciil iyo calool xumo 5 cunug oo ay dhashay hal mar xabaashi la geliyay xabad ku dhacday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wallahi waa wax laga xumaado wadankeena ilaahay hanoo hadeeyo wadankeena ilaahay hanooga saaro dhibka Soomaaliya ilaahay dhibka hanooga saaro wadan qani ah haysana laakiin dad waxaan haysanaa eber ah maskaxda eber ka ah laakiin wadankeena waa wadan qani waxaan ku dhahay waa wadan wax walba fresh yihiin waa wadan cuntada fresh tahay waa wadan waxaan ku dhahay hilibka fresh yahay waa wadan dabiici ah qorraxdu ay aad iyo aad u fiican tahay oo waxaan ku dhahay vitamin D aad u baahneen waxaan ku dhahay qurbaha marka joogto vitamin D u baahanaysa qorraxdiya ka dhamaata lagu leeyahay ilaa wadanka qorrax ma leh barafa jira qabow jira bal wadankeena alxamdulillah xilliga qabowaha roob ku daa xilliga qorraxda alxamdulillah wadan qurbaha dhibaatada ka jirto vitamin D ga inta ka dhamaado waxa lagu leeyahay vitamin D ga ka dhamaado ilaa qof qorrax arkay ma tihid war waxaan leenahay wada Soomaaliyeed wadankaana loo dejiyo dagaalkaana la ka dhaafo dagaal wiil ku dhashay dagaal wiil ku dhantay wiil kuma dhasho hadalka xataa wallaahi bilaa meel oo iga maraay ma aqaan waxaan ka xumahay hooyada Soomaaliyeed maanta dhibaatada ku dhacday iyo dhibaatada loo geystay inkastoo wax walbana ay xaq rabbi ka qoran yihiin wixii kugu dhacay ay 1000 sano ka weyn laakiin maanta waxa gabadha Soomaaliyeed ku dhacay iyo hooyo kasto oysa iyo hooyo kasto baroorata waa rag Soomaaliyeed
waa rag Soomaaliyeed waxa hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo baroorata oo maalin kasta oyso oo maalin kasta wiilkeeda la aaso oo maalin kasta wiilkeeda jaamacadda ay u dirtay la aaso oo maalin kasta gabadheeda jaamacadda ay u dirtay la aaso waa rag Soomaaliyeed waxa saa u galaya waxa saas noo galaya waa rag Soomaaliyeed wallaahi bilaahi adduunka ma arkin qof markaa dhahdo wadankayga 30 sano iyo ka badan xarbi ahliya ku jira yacni dagaal sokeeyo oo ku jira oo dagaal hadda lala soo galay maahan haddii la dhihi lahaa xataa adduunka la soo duqeynaya bal dad ayakii la iskugu dhiibay xabad ee la iskaga caana maala bal adduunka wax ka nasiib daran oo naga nasiib xumo badan ma jirto iyo dhulkan haysano iyo noloshaan haysano iyo barwaaqadan ku jirno haddana dad naga nasiib xumaanta waxaan ku dhahay Soomaaliya banaanka u baxad walwala ku nooshahay goorma iyo qarax kugu dhac goorma soo laabo doonta goorma ehelkaaga soo laabo doona qofka hadoo suuqa ku aad goorma cunuga u dirsatay jaamacadda ku soo laabo doona waxaan ku iri war ummadda war waxaan dhahaaya anaka dowladan aan qarxinayna anaka dowladan wax ku sameynayna shacabkii dhameeyeen ummadda shacabkii dhameeyeen ilaahay ha naga qabto ilaahay baan waxaan tala saaranaynaa ilaahay baa wax walba ku filan ilaahay waxaan leenahay dhibka naga dulqaad yaa rabbi dhibka naga dulqaad yaa rabbi ilaahu adoomadaada yaan nahay dhibka naga dulqaad wallaahi waa aqrisaban marka asxaabe hadal yaan idinku sii daalinay waa inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun leenahay ilaahayna sabargii mana walaasheen Allah ka siiyo ilmaheeda kuwa bedel qeyr qaban Allah